Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan hadda aan joognaa waa bartamaha magaalada Hargeysa oo aanu jecelahay inaan idinka soo gudbino caawa muuqaalkeena. Hargeysa cadday waa caasimadda jamhuuriyadda, waxay isku diyaarinaysaa inay qaabisho ama ay soo dhaweyso xilligii dhaxamaha. Waxay noo bilaabmayaa waa xilligii dhaxanta la geli jiray. Dabcan hordhaceedii ama horraanteedii hadda waaba la dareemayaa. Waxaana tahay noo caddaynaya siday runtii suuqa looga rawaxayo fiid hore ama xilli hore ay shacabkeenu ay u hooyanayaan. Waxaase laakiin mar walba kuu muuqanaya horumarka, hillaaca iyo weliba maasha Allah kobaca ay caasimaddu samaynayso. Inagoo markaa arki karayna sida loo adeeganayo, siday bulshadu runtii suuqa ay u joogaan isla markaana ay u adeeganayaan. Taasina waxay noo xaqiijinaysaa weli caasimaddu inay shidan tahay, isla markaana ay qeyrkeed la tartamayso, ay hiigsanaysana meelo kale oo waaweyn. Runtii waxaa jira haddaba xilliga dhaxamaha magaalada Hargeysa waxaa ka dhaca dhaxan aad u daran, isla markaana aad iyo aad runtii qof walba uga sii tabaabushaysto, iyadoo markaa ay shacabku iibsanayaan koodhadhkii, funaanadihii iyo weliba waxyaabihii kala duwanaa ee dhaxanta ka celin lahaa. Sidoo kalena ay u diyaar garoobayaan sidii ay shaqooyinka iyo meheradahaba ay fiidka horeba u xidhi lahaayeen, isla markaana ay subaxa hore ugu soo kali lahaayeen sidii ay u shaqaysan lahaayeen. Waxaa kaloo jira runtii dad iyaguna duruufaysan oo dan yara oo dadka Hargeysa ku dhex nool, isla markaana u baahan in lagu eego il gooniya si iyagana markaa looga qayb qaato sidii looga samata bixin lahaa dhaxantaa bilaabmaysa. Dadyowgaasi waa dadyow runtii aan lahayn cid u gaara oo u naxda, cid u gaara oo u hadasha, cid gaara oo runtii u damqata, balse laakiin waa dad u dhexeeya bulshaweynta Hargeysa oo aynu leenahay Hargeysa hoos ha u eegto bulshadeeda danyarta iyo weliba bulshadeeda darib jiifta iyo weliba bulshooyinka hoose ee markaan awoodin inay adeegsadaan ama ay iibsadaan dharka dhaxanta laga xidho iyo weliba huga lagu wado xilliga dhaxamaha. Waxaan taana tala ahaan siinaynaa dhammaan ganacsatada iyo weliba hay'adaha iyo weliba dowladduba inay il gooni ah ku eegto dadka danyarta. Runtii halkan waa bartamaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan wadada halbowlaha ah ee dhex marta caasimadda Hargeysa. Runtii wadada hareeraheeda shacab kala duwan baa ku ganacsada, isla markaana halkaas ku ceesha oo aynu leenahay bilicdii magaalada oo sidoo kale iyadana garab socota qurxinteedii oo ay dowladda hoose waqti fiican gelinayso sidii ay magaaladu u bilicsanaan lahayd, u quruxsanaan lahayd, qeyrkeedna runtii ay u dhaafi lahayd, una tartami lahayd. Waxaynu leenahay halkaa kasii wada. Hargeysa waa hoygii nabadda, waa hoygii fanka, sidoo kale waa hoygii amniga iyo weliba badbaadada. Sidoo kale waxaa jira ganacsato iyaguna xagga lacagaha sarifka ku ganacsada oo runtii iyaguna har iyo habeen, iyadoo habeena, iyadoo saqdhexa, iyadoo duhura, iyadoo subaxa intaba fadhiya oo cidna aanay runtii wax u dhibaataa u geysanayn. Hargeysa way horumartay.